kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channel maanta waxaan idin wadaagi doonaa muuqaal maalmihii ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada kaas oo ahaa nin askari ah oo gabadh ku dhex garaacaya mid ka mid ah dariiqyada magaalada Hargeysa haddaba gabadha uu dilay askarigaasi ayaa arrimo badan daha ka qaaday iyo waliba arrimo xanuun badan ee dabeetana ka dhawaajisay haddaba intiinaan u gudagelin muuqaalkeena maanta fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saaro kamid noqo asxaabta sida joogtada oo hela barnaamijyada iyo waliba wararkan halkan soo gelino waxaa muddooyinkii u dambeeyay saameyn weyn ku yeeshay baraha bulshada ku kulanto saddex alif leh ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo haween dadkuna ay u fasirteen inay tahay arday dariiqa maraysa ku gacan qaaday mid ka mid ah shaaricyada magaalada Hargeysa intaas kadib waxaa saddex alif lahaasi si rasmi ah looga saaray ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo gabi ahaan askarigaasi shaqadiisii laga ruqseeyay haddaba Marwa Ifraax oo ah gabadha askarigaasi shaarica uu ku dilayay ayaa sidan ugu warbixisay arrimaha dhexmaray iyadoo askariga iyadoo sheegtay inuu yahay ninkeeda haddaba daawasho wacan muuqaalka Allahi wa barakatuhu bulshada Soomaaliland dhammaan waan salaamayaa walaalahayo wax magacayga iyo muuqayga gareemo waan salaamayaa waxaan walaalay idinka codsanayaa waxaan ahay inantii dhibanaha ahayd ee maalintii dhawaatay la dilayay ee dariiqa lagu tumayay marna ma ahayn oo laba ma ahayn oo saddex ma ahayn ilaahay bilaadankiisa way ogaayeen dawladdu baanan ogeyn waagi bariidriska wala igu hanjabay oo wala igu dilayay oo gaadho wata hadii habeen wuxuu lahaa waan ku jiirsiinaya oo waagi bariyo way igu hanjabtay sababta u labisan diriiska waxa umadu moodi jirtay inuu ninka diriiska aniga ay soo xidhay habeen iyo maalin anigu igu hanjab jiray diriiska xidhay baaskoolada marna ma ahayn oo labana ma ahayn imagana ilaahay baa ku xawilo ilaahay baa ii kashifay ilaahay baa ii soo gacan galiyay arrinkaas uu ka fashilmay waana beenaale waana kaatib wax alla wax laga qorayana ma jirto haba yaraatee inuu gabadhiisii manha saddex u wada ayaan dhalay gabadh sodoha baan ahay ma ahayn gabadh suuqa lagu qaaqaawiyo oo masarka laga jiido oo cunaha lagu dhago halkee lagu arkay shaqo saxaab xagee lagu maqlay waxaan dhacayni weeye markaana gaarigana markuu meel soo dhigto leeyahay iga gacan horeysay anigu ninkan arrinkaygu wuxuu ku jiray maxkamad baan ku jirnay maxkamadna waxay geysay naf ay geysay markuu luuq walba ay galay uu sakad walba ay galay uu meel walba ay galay uu meel kasta qoriyo baaskoolda ila taagna uu mar hayno laba hayno tun jeer faraha ay saaray ama suuqa jooga oo gurigayga dilmay ka soo saartay uu badkayga iga qaatay uu xoog iga qaatay uu hooyadii u geystay oo aabihii hooyadii u geystay halka ugu hayaan uu xoog iga qaaday aniga hooyo ilmaheeda ma mana qabta iyadaa dhashay iyadaa soo dhibaatootay iyadaa soo sidicday iyadaa soo durxumootay ubadkayga xoog ayuu iga qaaday habeenna ma gama baan ku hurdana ma seexdo kibir baan iga qaaday iyo dhaqdhaq imaka iyo haatana amaan ayaan kala ahay anoo ubadkii iga qaaday oo banaanka jooga oo sanadii bar ka soo maqnaa oo masruuf waxa la wuxuu siiyay aanay jirin ayaan hadana amaan kala ahay oo habeen ma diriskaygu hanjabaya oo mar hayno laba ahayn imakana aan dil la hadlayo qol ayaan ku jiraa dawadu ma soo baxo guri hortiis ma taago amaan baan la ahay wax naftaadu waa macaan qol ayaan ku jiraa kama soo baxo imakana haar wuxuu marayaa uu afkiisa ku buuxsaday been abuur baa samaysanaya naagtu inay soo weerartay ma samaysanaya iyada xilkaygii saa u gashay iyadaan dilaya koobaan kaga siinaya Afrika iyo Asia cid wax qarisa ma jirto dadku waxa ma qariyaan ma garatay dadku waxba ma qariyaan hooyada iyo aabahan gureermi dadkaygu weeye miyay ka soo jeedaan ummadda Soomaaliland ilaahay ummadiisa iyo dawladda waxaan ka codsanayaa ninkaas way dhibay oo dhiig buu dhadhansiiyay oo Afrika iyo Asia meel aan gali karaa imaka ma jirto oo naqaan iyo xijaab aan dawladda ku maraa oo warwariyo dhibaatooyada haystaan banaanka u baxaa oo hadiyo habeen isagaan iska ilaaliya oo heegan buu ii yahay oo anu saayidaba taagan yahay oo waa ka ilaahay ii kashfay sidoo uu tumayay ilaahay kashfay isaga baraanka igu qaraacaya oo igu tumaya anoo gabadh sadoha oo u wadu haya oo badnaga dhaxeeyo wanaagu diiday wanaagmu xeerinin ilaahay ummadiisa waxaan ka codsanaya ninkaas inuu beenaale yahay oo waxa la waxa uu sheegaya inay beenta wallahi oo billahi oo tallahiya oo waysa qaba oo salaad baan ka soo baxay ilaahay igu og yahay in aan gacan kaga horreey wax gacan oo kaga horreey aan jirin maxkamad baan ka yimid 12 duhurnimo ay hay saasan u dheemaalayay meel baan soo lugeynay maana kaliya karayba baba kari hadalba man qaadi karayba maxkamad muddo ayay noo dhigtay wax isniin baan u tagnay waxay isniinteeda igu soo noqda ninka garsoorahay ninka raja ayuu la damacsanaa wuxuu islahaa iskuugu ururi oo reerkiisa raaci ayuu islahaa garsooruhu wuxuu yiri soo noqda aakhirka dambe igu soo laabta raja ayaa loo soo dhigay muusugin oo mu iimaansan oo isma oran maxkamadii kula ballantay kusin musaran
oo ku silmaysaro oo ilaahay baa ka shifay oo ma maxkamadkii halka lagana baxar shooraha 12ka duhurnimo oo halka ay qabtay oo siriga ay qabtay oo yiri gaariga kuma ridayn ida jajabinaysay inta sida ay qaaday oo ay tuqiyay ayuu laamida qarqarkeeda shishe sida tunka ay jiiday sidii bisal yaro jiirsidata sida tunka ay jiiday ayuu gaariga siri kuri deena waadido meel baa saaw iskale ma galaya baan ku marka warkayna gaariga gali waayna dawaaka bogta iga saaray ayuu nacib baaxsay tahay igu dhuftay dhulku wali igu dhuftay baan ku way barasan xaga ay xaga toona ma ay karo wali dhinacu iga tumay way barasan umada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa oo ka codsanaya inay Soomaaliyeed doonahay intaas ii silcinayeen imakana amaan ayaan la ahay ama wax sheegta ayaan imakana la ahay imakana bay igu darantay saacada aan joogeen hadlayo ayay igu darantahay inkaas waa beenaale oo beenaabur waxba kuma sameey gabadhiisi malaha miskiinad baan ahaa dilma gurigayga iga saartay darxuma iga saartay baababa iga saaray daraya iga saartay de markay saaru dabadii tuurayna amaan ayaan kala ay habeen iyo maalinba qalbigayga ma sugna habeen iyo maalin toona umada Soomaaliya wax ku codsanaya ninka inuu waxayga layga siiyo naagu ma noqonay naag la tumay oo dariiq lagu tumay oo gagal lagu tumay oo banaan lagu tumay ma naag bay noqonaysaa de waa maya wax wanaag lagu waayina de xumaan laguma helo markaas ninkaas waa dubjirka oo waa safraan oo wuxuu yahay baan jirin oo wuxuu go'an jiray ilaahay wax iga qaadi karin oo bilaadan baan iga qaadi karin oo maxkamad baan iga qaadi karin kooyaan kaaga siinaya bal waa cid wax ku qabata maanta yaa wax ku qabanaya dawlad baa wax ku qabanay oo maxkamad wax ku qabanay oo yaa wax ku qabanaya doqonay oo ma yaxa haysata waxa bii faanti waxaasna wuxuu ahaa direeska ayuu igu faani ila qofka ma weynayni direeska ayuu igu faani sakad walba uu iga gala oo wax dariiq walba uu iga gala oo meel kasta ويقل وديك تاسي جدسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته